السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنة الكمركلة السود واضح أدي هذا وما تنتهين maanta waa khamiis waana 18 bisha sagaalaad September sanadka 2025 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago maamulka madaxweyne Trump oo ku dhawaaqay isbedel lagu sameynayo imtixaanka lagu qaato dhalashada Mareykanka haddaba su'aalihii waa la kordhiyay imtixaankana waa la sii adkeeyay arrintaasi ayaan idin la wadaagayaa iyo dawladaha Mareykanka iyo Shiinaha oo ka heshiiyay iibka aaladda TikTok arrintaasina waan idin la wadaagayaa Trump dhowr jeer ayuu kordhiyay waqtiga shirkad Mareykan ah ay ku iibsan karto aaladda TikTok balse marka hore soo dhawaada umrada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana luweyn karo xilliyada salaada 2 gaadiid aad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda Islaamka 3 baridda qaabka loo guto acmaasha umrada 4 umreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ama aan awoodin 5 haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona wixii dheer fadlan waa WhatsApp number eber 9645459284 mahadsanidin معك أبي ضلحة حفظين قرآن كريم كي علوم تشريعة ومع لغو برت قرآن كريم تجويدك أغرسك قرسته هي حاجات تفرتها عاد صدق كلا تكبرن كرتا عربية حسن المسلم كسيرة النبي سفينة النجاة يا تربية الإسلام وحنو أدينا عرورت يدك واوين وصبير مانتا سيادون نقطة حافظ القرآن برشد يفتينو هرسيدا وحي فافاين تصدير waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaareynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online oo ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan Qur'aanka iyo culumta shareecada maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa kamid ah Qur'aanka hikaada ahadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shareecada qaabka waxbarashada dugsigaarina waa hab online ah oo waxbarashada aad ku qaadanaysan waxaanad kala xiriiri kartaa Gmail-ka iyo lambarada shaashada kaaga muuqda toddobaadkii hore waxaan idin la wadaagay in maamulka madaxweyne Trump uu qorsheynayo inuu doonayo inuu adkeeyo imtixaanka lagu qaato dhalashada Mareykanka qofku markuu dhalashada qaato oo shahaadada la siiyo markaas kadib ayuu baasaboorka codsan karaa marka shalay ayaa waaxda dawladda Mareykanka u qaabilsan bixinta green card-ka iyo waliba dhalashada Mareykanka waxay ku dhawaaqeen isbedel ay ku sameynayaan imtixaanka lagu qaato dhalashada Mareykanka imtixaankaasi oo US citizenship testiga la yiraahdo markii hore waxa uu ahaan jiray 100 su'aalood laakiin hadda maamulka Trump waxa uu ka dhigay 128 su'aalood 28 su'aalood oo dheeraad ah ayaa lagu daray markii hore waxa jirtay in Trump markii uu xilka ka degi rabay sanadkii 2020 in uu isbedel ku sameeyay imtixaankan lagu qaato dhalashada Mareykanka laakiin Biden 2021 markuu xilka la wareegay waxa uu dib ugu soo celiyay sidii uu markii hore ahaa oo ahaa 100 su'aalood xilligaasi oo sanadkii 2008 la dejiyay oo Obama uu dejiyay marka Trump halkii uu uga tagay ayuu hadda ka ambaqaadaya maadaama 2020kii uu doonayay 128 su'aalood inuu ka dhigo Bidenna uu bedelay markii uu xilka la wareegay hadda maamulka Trump haddana waxa uu mar kale dib ugu soo celinayaa 128 su'aalood inuu noqon doono imtixaanka lagu qaadanayo dhalashada Mareykanka shahaadada qofku markii uu qaato imtixaankaasi ku baaso markaas kadib ayaa baasaboorka uu dalban karaa marka markii hore waxay ahaan jirtay qofku 10 su'aalood ayaa la weydiin jiray su'aalaha taariikhda Mareykanka iyo dawladda Mareykanka ku saabsan 6 kamid ah hadii uu saxo waa uu ku baasi jiray laakiin hadda sidaas ma noqon doonto hadda 20 su'aalood ayaa qofka la weydiin doonaa waa in uu 9 ama 12 kamid ah waa in uu saxaa markaas kadib ayaa waxa uu noqonayaa in imtixaanka uu ku baasay qasab ma ahan qofku 9ka u horeeya ama 12ka u horeeya hadii uu ka jawaabo 20ka su'aalood lama wada weydiinayo sida markii hore ay ahaan jirtay qofku 10ka su'aalood 6da u horeysa hadii uu ka jawaabo aan 4ta dambe aan la weydiin jirin marka hadda waxa laga dhigay 20 su'aalood halka markii hore 10 ay ka ahaayeen halka 6 laga rabay inaad saxdo markii hore oo 10ka su'aalood ay ahaayeen 20kan hadda waxa lagaga baahan yahay 9 ama 12 kamid ah in aad saxdo si imtixaanka aad ugu baasto imtixaanka sidoo kale waxa qasab ah qofku inuu luqadda Englishka qori yaqaano isla markaana akhri yaqaano
kuna hadli karo. Marka intaasiba waa muhiim luqadda Ingiliishka. Waxaa sidoo kale laga rabaa qofku in uu caddeeyo inuu si sharciya Maraykanka ku deganaa 3 ilaa iyo 5 sano. 3 sano dadka viisayaasha ku soo galay ayaa waxay ku qaataan dhalashada Maraykanka. 5 sanana dadka qaxooti ahaan ku soo galay ayaa waxay ku qaataan dhalashada Maraykanka. Marka sidaasi ayay noqonaysaa in qofku uu imtixaankii hadda gabi ahaanba loo bedelay oo loo baahan yahay qofku in 128 su'aalood hadda citizenship test 2025 wixii hadda ka dambeeya in ay sidaasi noqoto. Marka waxyaabaha qofka la weydiiyo shaqadii su'aalaha la weydiiyo hadda wax kamida aan idin taabto waxa kamida waxa lagu leeyahay waxaad sheegtaa wax kamida waxyaabaha dastuurka Maraykanka uu qabto amaba sidoo kalena waxaad magacawdaa mid kamida dagaaladii Maraykanka uu dagaalamay sanadihii 1800 in sheegal Thomas Jefferson waxyaabo fara badan ayuu caan ku ahaa mid kamida sheeg ayaa lagu dhihi karaa amaba sidoo kalena waxaa lagu dhihi karaa Maraykanku muxuu u galay dagaalkii koobaad ee adduunka. Su'aalaha lacala lagu weydiin karo ayay su'aalahaasi ay ka mid yihiin. Marka waxaa jirta in qofka imtixaan oral ah ayaa jiro qofka su'aalo afka laga weydiiyo oo haa iyo maya ah. Su'aalahaasina iyaguna waa ay jiri doonaan welina sidoodii iyaga waxba lagama bedel. Marka isbedelkan maamulka Trump wuxuu yiri waa kii ugu horeeyay oo waxa laga yaabaa isbedelo kalena inay jiri doonaan sida hadda qoraalka oo kale iyo akhrinta luqadda Ingiliishka. Markii hore qofka hal sentence ama hal jumlad ayaa la weydiin jiray sida hadda madaxa USCIS uu sheegay wuxuu yiri arrintaasi naguma filno. Marka waxa laga yaabaa hal paragraph in lagu yiraahdo aqri inta waraaq qoran lagu dhiibo arrintaasina isbedelkeeda waa u dhiman yahay laakiin hadda su'aalihii oo kaliya ayaa la kordhiyay. Marka qofku markuu application-ka dirsado haddii 2 mar imtixaanka uu dhalashada ku qaadanayo uu ku dhaco micnaheedu waxay tahay application-kiisa waa la kansalaya inuu mar kale dib application uu u soo xareeyo ayay noqonaysaa. Sidaas darteed waxaa jira sidoo kale dad laga soo reebay oo iyaga loo fududeynayo. Dadkaasi waxa kamid ah qofku luqadii uu rabo uu ku gali karo dadka da'doodu ay ka badan tahay amaba ay gaartay 50 sano amaba ka weyn Maraykankana ku noolaa 20 sano. dadkaasi waxaa loo ogolaanayaa 20 su'aalood oo kaliya in wax laga weydiiyo luqadda ay jecel yihiin oo ay door bidayaan oo ay ku hadli karaan ayaana lagu weydiinaya. sida hadda dadka Soomaalida oo kale maadaama qofka asigoo da' weyn haddii Maraykanka 20 sano amaba uu jooga la leeyahay wax ka badan waxa uu ku gali karaa luqadda uu door bidayo oo isagu uu ku galayo. Arrintii sidoo kalena good moral character kana wali waa ay jirtaa oo qofka in dhaqankiisa uu wanaagsanaa dambiye wadanka Maraykanka uusan uga soo horgelin taxiga uu xareen jiray jaal saboorti aan lagu lahayn. Arrintii neighborhood investigation kana waa ay jirtaa oo qofka dariskiisa in la soo weydiinayo bal qofkan ka warrama siduu yahay ayadana arrintaasi wali waa ay jirtaa. Marka waxyaabaha qofka dhibka u keeni kara waxa kamid ah dadka qaxooti ahaan Maraykanka ku yimid in adigoo aan wali dhalasho Maraykanka aadan qaadan inaad doorasho codeyso amaba aad isku diiwaan geliso inaad doorasho codeyso. Arrintaasi waxay saameyn ku yeelan kartaa qaadashada dhalashada Maraykanka. Marka inaad codeyso adigoona haysanin dhalashada Maraykanka iyo inaad isdiiwaan geliso arrimahaasi oo idil waxyaabaha khatarta ku keeni kara ayay ku jiraan. Marka dadka qaxooti ahaan Maraykanka ku yimid amaba haddii aad visa ku timid arrintaasi ka digtoonaada adigoona dhalashada Maraykanka qaadan oo aan muwaadin ahayn ha isku diiwaan gelin inaad codeyso hana isku dayin sidoo kale in aad codeyso. Arrintaasi saameyn ayay kugu yeelan kartaa amaba inaad been sheegto marka aad doonayso inaad dhalashada qaadato arrintaasina dhibaato weyn ayay ku keeni doontaa. Haddaba marka isbedeladan cusub oo hadda lagu sameeyay imtixaanka lagu qaadanayo dhalashada Maraykanka goorma ayay dhaqan galayaan? Waxa ay dhaqan galayaan bartamaha bisha soo socotay October wixii ka dambeeya qofkii application-ka xareynaya dhalashada Maraykanka uu ku qaadanayo 128 su'aalood ayaa 20 kamida laga weydiin doonaa oo taariikhda Maraykanka iyo waliba dawladda Maraykanku siday u shaqeyso ku aadan. Waxa laga yaabaa hadda in lagu yiraahdo sheeg madaxweynihii 45aad ee Maraykanka waa Donald Trump haddana 40 madaxweynihii 47aadna asaga ah madaxweynihii 45aadna asaga ah. Su'aalaha lagu weydiin karo ayay qayb ka noqon kartaa. Marka bisha soo socota bartamaheeda ayay su'aalahan dhaqan galayaan. qofkii October wixii ka dambeeya 15keeda application-ka xareynaya su'aalahaasi 128 20 kamida ayaa la weydiin doonaa. Marka 9 amaba 12 kamida waa inuu saxaasi imtixaanka uu ugu baasaa. Intaasi haddii aan ka gudbo isbedelka lagu sameeyay imtixaanka lagu qaadanayo dhalashada Maraykanka, dowladda Maraykanka ayaa waxay xaqiijisay in Maraykanka iyo Shiinaha ay heshiis ka gaareen
iibka TikTok. waxaa TikTok waxaan ognahay maamulkii hore ee Biden inta uusan tegin ayaa Congress-ka ay sharci meel mariyeen madaxweyne Biden oo saxiixay oo 19 bishii January Trump hal maalin ka hor inta uusan xilka la wareegin in TikTok Mareykanka laga xiro haddii shirkadda iska leh Biden aysan shirkad Mareykan aysan ka iibinin. waa tii TikTok la xiray oo muddo saacadaha hawada uu ka maqnaa Trumpna uu wareegta saxiixay oo muddada u kordhiyay. hadda markii afraad ayaa Trump waqtiga uu kordhiyay TikTok in Mareykanka uu ka sii shaqeeyo inta shirkadda iska leh shirkad Mareykan ay ka iibinayso. waxaana hadda uu kordhiyay talaadadii markii afraad. marka wasiirka maaliyadda ee Mareykan ninka la yiraahdo Scott Bessent ayaa waxa uu sheegay in heshiis hordhaca la gaaray 3 shirkadood oo Mareykan ah ayaa 80% aaladda TikTok lahaan doona. shirkadahaasi waxay kala yihiin shirkadda Oracle oo hadda xogta dadka Mareykanka ah kaydin jirtay iyo sidoo kale shirkad la yiraahdo Silver Lake iyo shirkad kale oo la yiraahdo Anderson Horowitz. saddexdaasi shirkadood ayaa 80% waxay lahaan doonaan milkiyadda TikTok. marka waxa uu Trump la filayaa in bari oo Jimcaha marka hadda uu caawa ka soo laabto booqashada Ingiriiska uu ku joogay 2 maalmood ee la soo dhaafay in isaga iyo madaxweynaha Shiinaha ay maalinta bari oo Jimcaha qadka telefoonka ku wada hadlaan lana soo gabagabeeyo in TikTok shirkad Mareykan ay iibsato. Mareykanku waxa uu leeyahay in ammaanka qaranka ay TikTok qatar ku tahay maadaama xogta dadka Mareykanka ay dowladda Shiinaha si fudud ay ku heli karto. sidaas darteed ayaa iyo waliba in ay qatar ku tahay ammaanka qaranka ee wadanka Mareykanka. sidaas ayayna ku doonayaan in shirkad Mareykan ay iibsato haddii kalena laga mamnuuco Mareykanka. marka sida muuqata hadda dhowrkaasi shirkadood ee Mareykanka ayaa waxay isku dayayaan in inta ay isbahaystaan ay 80% ay lahaadaan aaladda TikTok halka 20% shirkadda markii hore iska lahayd ee Biden sida aan filayo ay lahaan doonto. marka sida muuqata inta badan milkiyadda aaladda TikTok shirkadahaasi Mareykanka ayaa lahaan doona waxaana la filayaa in dhawaan la soo gabagabeeyo. waan arki doonaa sidoo kalena iibka TikTok iyo waqtiga uu dhaco iyo shirkadahaasi Mareykanka haddii ay ku guuleystaan inay iibsadaan. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo.